tababarkan oo ahaa mid kor loogu qaadayay fahanka garaadka aqooneed ee iskaashatooyinka ku hawlan wax soo saarka malabka ee degmooyinka Salaxaada Lagahida Qubbi Mayu Muluqo iyo Xoobo iyo degmada Cayuun sidii ay faham buuxa ugu yeelan lahaayeen dhaqashada shinnida iyo habka wax soo saarka casriga ah ee malabka ayaa waxaa tababarkan iska kaashanayay xafiiska horumarinta kheyraadka xoolaha iyo reer guuraaga ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo mashruuca wax ka beddelka hab nololeedka bulshada xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqata beeraleyda ee loo soo gaabiyo LLRB mudane Abubakar Cali Liibaan madax waaxidka horumarinta dhaqashada shinnida iyo kalluunka ee xafiiska horumarinta kheyraadka xoolaha iyo reer guuraaga ee dowlad deegaanka Soomaalida oo faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda tababarkan ayaa sheegay inuu tababarkani kaalin ka qaadan doono wax soo saarka casriga ah ee malabka ee qaniga ku yahay deegaanka Soomaalidu gaar ahaan gobolka Erara ujeedooyinka tababarkan ugu muhiimsan ee casharada halkan lagu bixin doono waxa kamid ah waxay ku kala duwan yihiin gaagurta dhaqanka iyo ta casriga ah nidaamka loo isticmaalo gaagurta casriga ah sidoo kale waxa la ogyahay gaagurta dhaqanka iyo gaagurta casriga inay kala wax soo saar gadan yihiin salahan hadan soo qaadano gaagurta dhaqanka ilaa macnaha markay ugu badan tahay 10 kiilo baa laga maaraa labadii jeer halka ta kale laga maalo macnaha laga gurto malab ahaan ilaa 50 macnaha kiilo waxaweyaan muhiimadda ugu weyn ee xafiisku hawshan isagoo iskaashanayaan mashruuca LLRB ka shaqeeya macnaha degmadan in la dhiso iskaashatooyin kii ku hawlanaa ee macnaha dhaqashada shinnida marka hore la sameeyo isku xid iyagoo 10 qof la isku xidhay kadibna la siinayo nidaamka casriga ah ee u dhaqan lahayn shinnida markaas nidaamka dhaqankii maadaama uu nidaam qadiimi ahaa hadda waxa la rabaa wax weeyaan wax soo saarkiinu si uu kordho dhaqaalaha bulshadana isbedel u yimaado muhiimadda ugu weyn ee macnaha arintan loo abaabulayna wax weeyaan waxa ogsoonahay dawladda deegaanka Soomaalida in warshad laga furay maamulka macnaha magaalada Fiiq ee gobolka Erar waxaan hawlahan oo kale sidoo kale ka soo fulinay degmooyinka Lagahida Salaxaad Qubbi Cayuun iyo hadda on joogno Mayu Muluqo waxa kale oo noo harsan degmada iyo Xob Layra tababarkan intii uu socday ee casharada bixinayeen khabiirra aqoon durugsan u leh wax soo saarka casriga ah ee malabka ayaa iskaashatooyinka looga faa'iideeyay tababarkani waxay sheegeen in casharadii ay barteen ee ugashi u noqonayo ay inooga faa'iideysanayaan wax soo saarka malabka ay ku hawlanaayeen haddaan ka hadlo qaabkii hore ee aan isticmaalaynay iyo maanta tababarkan laba aad u kala fog weeyaan laba waxa weeyaan dee aan isu dhoweyn awal waxaan yeeli jirnay maaragtay dhibaatooyin badan baa ku qabnay anagu dee dhaqankii aan u soo dhaqanayna shinnida kuwa waxyaabihii aan kaga gaashaaman lahayn oo shinnida aan kaga faa'iidi lahayn ayaan halka ka faa'iidnay horta waxaa ka mid a dee qaabka quraanjada iyo xoorka iyo maaragtay wixii iyada cadow ku ahaa looga gaashaaman lahaa oo aanan awal u lahayn aqoon fiican waxaa kale oo ka mid a inayna isku faa'iido ahayn annaga qaab dhaqameedkanagii iyo qaabkan casriga inaynan ahayn isku faa'iido aad u kala faa'iido fog yihiin baan ka barannay halkan waxaa kale oo ka barannay dee awal waxaan uun ka guran jirnay malabka kolba qiimo dooni ha lahaado suuq fiican yuuna lahaan qaabab kale oo looga faa'iidaysan ayaan halka ka barannay sida shamacda oo kale sida ma garanaysaa waxyaabo badan oo nan hadda ka hor uga faa'iidaysan jirin ayaa halka barannay shamaca ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah qaabkii dhaabka loo samayn lahaa ee dee moogtahay gaagurtan casriga ah loogu samayn lahaa dhaabka loogu samayn lahaa qaabkii loo nadiifin lahaa oo malab nadiifa lagu heli lahaa yaa ka mid ah marka dee laba la isbarbar dhigan ma aha waxaana xusid mudan in xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalidu ee degmada Fiiq xarunta gobolka Erara sanadkii tagay ka fulisay warshada casri ah oo lagu sifayn doono malabka ka soo go'a gobolka Erara maadaama gobolka Erara qani ku yahay wax soo saarka malabka Cabdikaafi Axmed Wali SRTV magaalada Fiiq